halkani waa deegaanka Xargaga ee gobolka Sool waxaana ku nool qoysas tiro badan kuwaas oo aan haysan biyo ku filan marka laga reebo xurfado ama baliyo ay biyaha roobku galaan isla markaana ay ka cabaan dadka xoolaha iyo xayawaankuba taasina ay waxyeello u geysato caafimaadka qaar ka mid ah dadkani halkani ku nool haddaba mid ka mid ah qurbajoogta deegaankan ayaa isu xilqaamay sidii uu dadkiisa u gaarsiin lahaa biyo ay cabaan waxa uu isu kharash gareeyay sidii uu keeni lahaa riig loogu qodo ceelal ay ka cabaan noloshoodana ku maareeyaan qurbajoogan oo lagu magacaabo Kamaal ayaa ka soo jeeda deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool odayaashii waxgaradka deegaankan ayaa u mahadceliyay Kamaal waxayna qurbajoogta dhigiisa ugu baaqeen inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka ayna kaga daydaan wax qabadkan uu ku talaabsaday waa soo dhaweynaynaa waxaa mahadne Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiilka noo keenay riiga waa soo dhaweynaynaa isku duwaha wakaalada biyaha ee gobolka Sool waa soo dhaweynaynaa waxa laale wixii waxtar noo keenayna waan soo dhaweynaynaa waxaanu jecelahay in loogu soo kordhiyo tuubooyin iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفر يطبق يا بقولك يا كل سلامي تذكر إسلام كإنه يمي جورجا أنبياء لهين إما أنت قصة عطه إن الأرض استريجا إلهي وحنا كرشين الريجا يقوى وضبا إلهي مر ولا الدنيا خربة إلهي علتوا إنه كدقوا أيام إلهي كوبرينا حتىهم الله ما تمر رج مليار يبدوين لما إلهي وحنا كبرينا بوالكسن إلهي كفر هو وحنا آلي يسود وين أو مهدا ونغينا الله خالقه أرمها اسكت بريدة أيام مهد إسكال أو كم مهتن وحاكوا مهدا لبعض له بنحضر نوتي بإيمان تلقى نوتي بإيمان سود وين وحنا رجينا سيدا أي سكدرن إلى دسكا بهنا ياشا يا سبولكا يا عيوبي هالكا طبعا أفرت بقول يستيقظ قف يا بيا بطون هيسن إن هالك هوسا كا ودان أيام رجينا dadka soo duucsan waan biyo haysan waxaanu ka cabnaa kal wax walba ay ka cabaan daayeer iyo dad maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin hadii halkaas loo hagaagto annagoo ilaahay ka rajayna sida waa ka rajayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan boorinaya bordhawato waa roob duufaani soo ka daay bariga wada wadaan boodada soo jiif baa gooday intay baxad ahayd wadogti wadada sirjiif waxa ku imaan jiray wadada bari ka timaada ay wadada bariga ka timaada iyo wadada ka timaada Raaskambooni inta boondada isku xidhisay baa gooday ee saddex jidahay jineerti waa yimaadeen Cabdiwalin hadal ku soo jeediyay wuxuu yiri barnaamij la yiraahdo isku tasho ardayda iskoolka iyo kuwa jaamacadaha kulli min $1 $2 $5 bixinayeen إلا بونددي أي كدسين هاي أدونا وحي يرادان يا واحد قبسان كرو عن سيد تاكلينا هدينو سيدا يالله وإن قفنا وحكسوجين إيه نجا نسكت تشنو وحبينو قبسان كرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدواء قالت بيها يو مدحدي ياشي سلا صعدا يو إنك لوكيني يو حلبانك رجع لوكيني إلهي باب مهد سكالة عاد بان قبوريننا وأنا كسر دويننا أنت وحي وليا ارتمتك الله وكو حمد لله غيا الحمد لله إلى باب مهد سكالة حنان تكبورينا يا ما دام ما ملك صومالي اللين يعني هوس نمادنا ما دام قلت النوجو الرئيسي ما أنت هيئتك استعقى السعودين إنه يمادين وإن حسوستين وإيراد ما أنت من ماشي عدد بتشويه waxu soo qabano waa waxa Ilaahay loogu maadnaqa iyagana waa ku buurina oo ku soo dhaweeyna hadle muslim iyo gaalba bulshada halkan soo degtay cid kasta oo wax u qabanaysa muslim iyo gaalba oo goobtan iman doonta ama imanaysa waan soo dhaweynaynaa marka hore Ilaahay baana mahadle walaalaha naga maqan ee daawan doona fiidiyowgan ama codkan maqli doona waxaanu ka codsanaynaa sida Kamaal inay dhiirani buuxdan noo keenaan oo dadkooda u keenaan sida Kamaal waxaanu leenahay akhri adduunba Ilaahay ha kaalmeeyo hawshan uu ku jira iyo hawlaha ka dambeeyana Ilaahay ha ku guuleysiiyo Kamaal baanu leenahay magaciisana kor Allah u qaado madaxda sharafta leh na soo booqatayna iyana waa mahadsan yihiin iyo xildhibaanka bidixdeeda taaganba odayaashu dhan waa mahadsan yihiin
war dhulkiina kaalayo oo dadkiina wax u qabta sida Kamaal ilmaade rayaalow nimankiina maqano iyo intiina aqli iyo cilmi la walahow Kamaalow hanaga caajisin insha Allah ta'ala waad ku guuleysanaysaa tan wixii ka dambeeyay hor iyo horaanba waan soo dhaweynaynaa dalkaagii hooyaanad wax u qabanaysaa midig madax malaha aadmigu wuxuu ku mitimiyaa macaluul wax kaaga ma tarto ma lagu guray midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada marka aadan lahayn looma ruxo maanka waligaay magaalada hashaala ka roon maydhanaan kale abwaan tim cadaa yiri isagoo la soo maray masaafada inta leeg iyo dhibka wuxuu ka duulayay biyo la'aanta iyo magaranaysa dalkiisa iyo dadkiisa hayso wuu ku mahadsan yahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro lacagtiisa uu noo soo siiyey marka xigta halkan waxaan isna uga mahadcelinaynaa suduwaha biyaha inagu yey maanta xargaga markaan tii hore ku noqdo ee Kamaal dadka dibadda jira ee kale ee dadka ka tigay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحبا ورد مايو زمان كان دنبي أورا ليغا وحكوون أكسن برات كذا مع تلمامة يا أوكلية كندا هي ماشا اللي يراهو حقيقة انت يسو جيران أيوم بان تلمامة يا كلية تلمان انت أون بان كبحيني قبل يهدر إن هذا كي تريني قبل يدا أنا أقولي ده أحمد عبد الله قبل يقولي gacmaha laga dirgahay wixii midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada gabaygaasi wuxuu tilmaamayaa warintaad cid wax ka sugaysaan qolihiina dibadda jira iyo kuwa gudaha joogo idinka gudaha jooga meesha gaariga Canada ka yimid la idinku keenay wadadiisa inaad falataan gacmaha laga dirgaadi weey magaalada hashaada ka romaydana kale beeraha wadada marta inaad falataan si baabuurtan uu idinka keenay Canada idinku geeyo ceelasha idinku qodo waxa ballaninoo ah wax soo saar waa laga gudbay waxyaalo badan oo hadeer dhulkeena lagu hayo adduunyadu waa ka gudbay waxa loo gudbay shakhsigu waxa uu cuno 24 saac gudahooda waxa uu quuto inuu la soo baxo oo agtiisa kala soo nin samada kala soo baxa ma jira dhulka laga soo baxa waxa la cuno nin walooba wixii cunto aad ka dhigan kartay daily use kaaga inaad la soo baxdo magaalada qaxooti ma aha waa dhulkoodii dadku qaxooti haddaad iska dhigtaan weligii qaxooti baa ahaanaysa dadkii ka tagay Soomaaliya ee Yurub galay qaarna waa qaxooti qaarna waa ragga hadeer keenay alaabta $100,000 ka badan waxa uu meesha idinku keenay qofna lama leh isaga leh Kamaal qaar la agdegan baa jiro weli qaxootigii qaata idinkuna la mid baad noqonaysaan haddaad tuuladan iyo dhirtan iyo geedahan iyo quruxdan aad dhex degantihiin aad qaxooti ku aataan biyaha ka soo degaya buurta guriga ku dhegan inaad cishitaan baad xaq u leedahay oo wax ku beerataan oo waxaad cuntaan la soo baxdaan haruur iyo yaanyo iyo wixii idinka soo baxayo la cuni karaba qaxooti ma tiidin mar haddii riigiina la idin keenay oo wiilka aad dhasheen uu idin keenay حق با ليدكو يشي إناد وحي لقبانيا قبطان ودل فلو شغادو آن لقبطان برنامج سلا إذين جع دقودكو قفك بنادنك وقبانيا مركو أركا داد وح قبسانيا أما وحي وحكو ترنسانيا تهذا روو كيري أروو وحبا إذين مكيني لكن إساقان هل كان كان oo ka soo raacay Hargeysa oo hawshan la soo qabtay oo dhiirigelintaas loo baahan yahay idinkuna inaad qabsataan waan ka noqonayaa hawshiina inaad qabsataan saasaan idin soo gaarsiiyey nin walba ogow dawladda la idin sheegaa waa ka Canada ka keenay iyo idinka oo qabsada hawsha waxa marbaad idinku sii celinaya war haddaydan idinku wax qabsan riiga uu keenay halkaas ku baabaaya haddaydan idinku wax qabsan ceelka la idin qodo waa duugmaya haddaydan idinku wax qabsan biyaha toga ka soo baxaya aydan cishan weligii noolaan maysan saas idin agmarayaan oo baan ku jiraysaan magaalada inta leeg ee aan lahayn biyo saldhigay oo meel u yaala waa subhanallah marka daarta dhisayseen biyaha ka horeeya wadana ka horeysa waxa kale oo idinku boorinaya masaajidka weyn ee magaalada deeqa ee magaalada intiina joogta deeqa ee idinku ag yaala ilmaada riyaal hal la buuxiyo shanta salaadood hal la tukado ilaahay markaas wax walba idin siinaya ummaduna idin imanaysa meesha quraanka lagu hayaa ummadoo dhan isugu imanaysa raaxana lagu helayaa
diinta هلا برتو مساجد كدين هلو برتو من يساعد في الأرض يسعد الله في السماء ضدك إسلام كان هلا ساعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته